هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، walaalayaal allah tabaaraka wa tacaala cabsidiisa ayaa naftayda iyo tiinaba u dardaarmaya. allihina abuuray adduunyadana keenay ayaa mudan mar walbo, meel walbo iyo waqti walboon joognabo inaan rabbigan ka cabsanno tabaaraka wa tacaala. cabsida rabbina waxay tahay awaamirtiisa inaan u hoggaansanaano oon adeecno, nawaahidiisa iyo waxyaabaha uu rabbi naga reebayna inaan ka fogaano oo aan ka dheeraano. inta haddiina laga helo inta adduunyada aan joogno, nolol macaan oo qiimo badan baan adduunyadana ku noolaanaynaa. aakharana ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muttaqiinta wuxuu u diyaariyey janno aan la sifayn karin. ilaahay un tabaaraka wa tacaala uu og yahay weynideeda iyo quruxdeeda iyo nicmada taallo. marka walaalayaal, cabsidaas ayaa naftayda iyo tiinaba u dardaarmaya. waxaa kaloo xigta aan jeclahay inaan maanta isku baraarujinno. waxaad ogsoon tihiin waqtiga hadda aan ku jirno, waxaan ku jirnaa rajab oo ah gebogebo. waxaan kusii soconnaa bishii qiimaha badneed ee ramadaan ayaan kusii soconnaa. rajab iyo ramadaanna waxaa u dhexayso bil la yidhaahdo shacbaan. dadka intooda badan way og yihiin fadliga rajab, maxaa yeelay rajab waxay ka mid tahay ashhurul xurum, bilooyinka la xurmeeyey ayay ka mid tahay. ramadaanna waa la yaqaanaa fadligeeda iyo sharafta ay leedahay, wax yacnii qof walba uu garanayo weeyaan. runtii waxaa isweydiin mudan marka, shacbaan oo hadda aan gelayno iyadana fadaa'il iyo waxyaabo gooni oo la sameeyey ma jirtaa? bil ayada xataa liidatay ma tahay mise ma aha? inaan isweydiinno waa muhim. walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala fursadaha nolosha wuxuu noo siiyey inaan ka faa'iidaysanno. jaanis walba iyo fursad walbana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sameeyey mawaasim iyo waqtiyo ujuurta iyo ajarada la laban laabo ayuu rabbi u sameeyey tabaaraka wa tacaala. bishan shacbaan iyada xataa bil yaraysata ma aha. waa bil uu weynayn jiray nabigeenna suuban salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh. nabigeennana calayhi salaatu wassalaam inaan ku dayanno waa mid muhim ah. bishan shacbaan aad buu u weynayn jiray, wuxuuna soomi jiray soon uusan soomi jirin bilooyinka kale. soon uusan soomi jirin ayuu soomi jiray suubanaha salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh. caaisha binti sidiiq radia allaahu tacaala canha wa ardaaha waxay leedahay, nebiga calayhi salaatu wassalaam ma ahayn mid sooma bil oga badan soomidda bisha shacbaan. bil la sooma bil uu ka badsan jiray shacbaan ma jirin bay leedahay radia allaahu tacaala canha. fa innahu kaana yasuumu shacbaana kullah. waxay leedahay nebigeenna suuban calayhi salaam shacbaanoo idil ayuu wada soomi jiray. shacbaan oo idil ayuu wada soomi jiray. xadiidkaa waxaa soo saaray bukhaari. sidoo kale umu salama radia allahu tacaala canha xadiid kale ay warinayso waxay leedahay, ma arkin bay leedahay nebiga calayhi salaatu wassalaam oo 2 bil isku xiriirinaya soonkood ilaa waxaa un arkay shacbaan iyo ramadaan. 2 bil oo isku xigta inuu isku xiriiriyo soon ma arki jirin bay leedahay oo aan ka ahayn bisha shacbaan iyo bisha ramadaan. taana waxay ku tusinaysaa marka in bishan ay tahay bil ayada xataa aad iyo aad u qiimo badan nagu soo aadan shacbaan, inay tahay bil aad iyo aad u weyn. nabigeenna suubanna calayhi salaatu wassalaam uu aad iyo aad u weynayn jiray. maxaa yeelay soon waad ogsoon tihiin acmaasha ugu qiimaha badan oo rabbi loogu dhowaado soonka ka mid ah. imagine waxaa waay bil dhan ayuu nebiga calayhi salaatu wassalaam soomi jiray oo aan ahayn ramadaantii waajibka ahayd, faradkana ahayd. taa waxaad ku ogaan kartaa marka fadaa'isha ay leedahay bishan shacbaan. walaalayaal, waxaa kaloo muhima in ogaano maxaa xikmada ku jirto.
ya muxuu nebiga calayhi salaam saa ugu weyneynaya bishan shacbaan ayadana waa inay isweydiiso waa muhim nebiga calayhi salaatu wassalaam xikmooyin dhowr ah ayuu tilmaamay inuu u weyneynayo oo uu u cibaadaysanayo bishan shacbaan waxaa ka mid ah walaalayaal bishan shacbaan waa bil dadka intooda badan ay khaflad kaga jiraan ay iska jiifaan aysan cibaadooyin fara badan ku baraarugsanin waxaa waaye waxay u dhexaysaa 2 bilo waaweyn rajab iyo ramadaan waaweyn bay u dhexaysaa dadka waxaa laga yaabaa markay rajab ka soo baxaan acmaashii faraha badnaa ay samaynayeen inay ka gaabiyaan oo isdhahaan aada nasatid kadib ramadaan baad markaad gaartaan si fiican u dadaali doontaa marka waa bil dadka intooda badan laga yaaba inay iska nastaan oo ay khaflad kaga jiraan ya sidaasuu u nooleyn jiray nebiga calayhi salaatu wassalaam sir kalea ku jirta oo ah acmaasha marka dadka intooda badan ayna camal khayri a samaynaynin qofka markaa camal khayri sameeyo labanlaab buu helayaa ajir fara badan buuna helayaa ya sir kalea ku qarsoon oo ah acmaasha waqtiyada dadka ay khaflada ku jiraan oo aysan ku baraarugsanayn qofka hadduu istaago oo uu camal khayri a sameeyo ajir aan inaba caadi ahayn buu meesha ka helayaa sidoo kale bishan shacbaan waa bil acmaasha alla loo koryeelo tabaaraka wa tacaala waad ogsoontihiin adduunyadan waa daaru camal waan shaqaynaa camal baan qabannaa camalkii aan qabanaynay baa ilaahay loo bandhigayaa tabaaraka wa tacaala ilaahay baa loo sarmarinayaa acmaashii aan samaynaynay sidaa darteed nebigana calayhi salaatu wassalaam wuxuu dhihi jiray waxaan jeclahay in camalkeyga la kor yeelo anigoo sooman sidaasaan jecel u dhihi jiray nebiga suuban salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh usaama ibnu zayd radia allahu tacaala canhuma ayaa weydiiyey nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay waxaan ku dhahay qultu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow lam araka tasuumu shahran min ashuhuur maa tasuumu min shacbaan ma arkin buu leeyahay bilooyinka ka mid ah mid aada soomayso mid la mid ah soonkan aada soomayso shacbaan shacbaan soonka aada soomayso bilooyinka kale sidaas adiga u soomaysa maan arkine maxaa ku wacanoo bishan aad sidaa ugu weyneynaysaa nebi allow qaala wuxuu ku dhahay nebiga calayhi salaatu wassalaam daalika shahrun yakfalu nnaasu canh kaa waa bil dadka intooda badan ay haafil kaga jiraan oo khaflad kaga jiraan oo aysan in badan ku baraarugsanayn bayna rajab wa ramadaan waxay u dhexaysaa rajab oo ah bil aada u weyn iyo ramadaan waad ogsoontihiin walaalayaal dadka marka intooda badan khaflad bay kaga jiraan buu dhahay nebiga suuban salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sidoo kale wa huwa shahrun turfacu fiihi alacmaal waa bil ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha loo kor yeelo fa uxibu an yurfaca camalii wa ana saa'im buu leeyahay nabigeena suuban salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaan jeclahay camalkayga in kor loo qaado alla la geeyo tabaaraka wa tacaala aniga oo sooman marka waad dareemi kartaan walaalayaal bishan shacbaan inaysan ahayn bil inaba la yaraysan karo waa bil nebiga calayhi salaatu wassalaam u wada soomi jiray annagana inaan ku dayanno sunnadiisii qaadanno waa midna anfacayso adduunyadeenna iyo aakhiradaynaba aan isku dayno siduu xabiibkeenna u nooleeyey salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi bishan shacbaan annagana inaan cibaadooyin ku noolayno inaan soon ku noolayno nin walba kii wada soomi karo kii in ka soomi karo waajib ma aha waa sunno qiimo badan weeya runtii qof allaala qofkii ka faa'iidaysan karo fursaddaas dadka intooda badanna aysan ku baraarugsanayn yaa aan isku dayno inaan acmaal fiican samayno walaalayaal bishan shacbaan midda kaleo loo baahan yahay inaan ayadana ku baraarugsanano waxay tahay bishan shacbaan niskeeda markii la gaaro ilaahay subxaana wa tacaala dadkao dhan buu dunuubta u dembi dhaafaa ilaa 2 qof ma ahani 2 unbaan loo dembi dhaafaynin oo loo naxariisanaynin labadee waa labadaas oo aan loo dembi dhaafaynin waa mushrik iyo mushaaxin qof mushrik ah rabbi tabaaraka wa tacaala kelinimadiisa iyo waxdaaniyadiisa u qiri waayey tabaaraka wa tacaala iyo qof mushaaxin ah cuqdad ka buuxdo cuqdad low ah
asagana qofkaasoo kale looma dembi dhaafayo bishan shacbaan niskeeda markii la gaaro. waxaa loo baahan yahay marka in aan noqono dadka oo dhan wada cafiya, cuqdada iyo xiqdiga iyo collaytanka inaan ka fogaano iyadana waa muhim walaalayaal. ramadaan baa nagu soo socdo, bilqiimo badan oo alla dadka oo dhan ugu wada dembi dhaafayaan nagu soo socoto. in annaga noola dembi dhaafi waayo, inna la dhaho war kuwan looma dembi dhaafayo ilaa ay ka soo heshiiyaan. waa ogsoontiin labada qof oo yacni isku caraysan, isku xanaaqsan, acmaashooda kor looma qaado. waxaa la leeyahay iska dhaafa kuwan xataa yastalixa, ilaa ay ka soo heshiiyaan oo waxa dhexdooda yaalla ayaga ay u soo xalsadaan, camalkooda kor looma qaadayo. soo dhib ma aha, khasaarena ma aha. adoo intaa ogaatay shaqaynayay, camal iyo salaad iyo wejiga ku murxay iyo soon iyo cibaadooyin samaynayay, haddana camalkaaga in kor loo qaadi waayo, soo arrin khatara ma ah. annaga Soomaali inteena badan waxaaba naga dhadhacsanma qof kale haddaan isgalno miski isku xanaaqno mise inaan mar dambe isku soo laabanin. dad baa ku faantami ana mar haddaan xanaaqon qof isku xanaaqno weligii ma salaami, weligiina lama kulmi. taa waa doqonnimo la leeyahay, doqonnimo waa. qof caqli qabo alle iyo rasuulkiisana rumaysan hadal noocaasoo kale kuma hadlayo. bini aadanka way isgafayaan, way isqoomayaan, laakiin lama rabo in qoomkii iyo dagaalkii iyo wixii dhex maray inuu sii socdo, lama rabo. xadiid kale nabigeena suuban salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu noo tilmaamayaa dadka inaysan kala hijiroon karin muslimiinta wax ka badan 3 maalmood. laa yaxillu limri'in muslimin an yahjura akhaahu fawqa 3. 3 maalmood wax ka badan inaad walaalkaaga muslimka ka maqnaato kuma bannaano, xalaalna kuma ah. inaad iska hor imaataan, midna midka kale ka jeesto, oo waxa waaye ina rabinba inaan is aragtaanba, oo ma baahno. ukhuwadii islaamka, ukhuwadii iimaanka, dadka muslimiinta inay isjeclaadaan, isku soo xiisaan la rabay baa meesha ku baaba'ayso. labada qof oo isqabsatay, midka salaanta u hor bilaaba, midka soo laabta oo cafiska dalba, kaasaa ugu khayr badan. wa khayruhumaa alladii yabda'u bisalaam. noqo marka markaad qof isku xanaaqdaan, midka soo laabta oo salaanta ku hor bilaabo cafiska dalbada noqo. ha fiirinin yacni qofkan wuu ku yaraysan haddii aad usoo laabato ood cafis dalbi weydo, yacni waxba kuuma arkaya hadhow, ha isdhihin weliga. intaad leedahay qof ka argooso oo ka argudo intaad leedahay, aakhira seegaya kugu dhicin walaal. isku day in qof walaalka haddii aad wax isku qoontaan inaad cafis kala dalbataan. asaga hadduu kaa sii jeeda xataa uusan soo laaban rabin, xataa adiga maadaama aad tahay qof ilaahay iyo rasuulkiisa jecel, qof camalkiisa iyo aayihiisa ka fikiraya maadaama aad tahay, adiga u tag, raaligeli. meeshaa marka cuqdadii iyo dhibaatadiinii dhex taalle meeshaa ku baaba'do. fariinta ugu weyn oo aan muslimiinta meel walbo ay joogaan u diraya waxay tahay, walaalayaalow, cuqdada quluubta ha laga saaro, walaaltinimada iyo ukhuwada ha la daa'imo. qof allaala qofkii aad wax isku qabtaan iska cafi, cafisna ka dalab. dadka ha wada noolaadaan si nabadgelyo ah oo qiimo badan ha ku wada noolaadaan walaalayaal. intaasaan jeclahay inaan nafteyda iyo tiinabo ku baraarujiyo walaalayaal. bishan shacbaan ee nagu soo food leh aan isku dayno sida ugu qiimaha badan inaan uga faa'iidaysano, acmaal kala duwan, khayraad fara badan inaan samayno. sidoo kale ha hilmaamin qofka waxa uu caado ka yeesho ayuu ku socdaa. adiga haddaad bishan shacbaan acmaal fiican iyo khayraad ku dadaasho, waxaan shaki ku jiraynin inuu rabbi kuu fududaynayo bishii qiimaha badneed ramadaan inaad khayraad sii siyaadsato. ilaahay waa kuu fududayn tabaaraka wa tacaala. haddaad cibaadooyin salaad la qabsato, ood qur-aan akhris la qabsato, ood soon la qabsato, ilaahayna subxaana wa tacaala bisha ramadaan wuu kuu fududaynaya acmaashoo dhan. marka walaalayaalow, aan isku dayno inaan acmaashaa daa'ino bishan shacbaan. ilaahayna subxaana wa tacaala biasmaa'i alxusnaa wa sifaati alculaa waxaan ka baryaynaa inuu ramadaan nagu gaarsiiyo annagoo nabad qabna, annagoo jecel inaan cibaadooyinka sida ugu wanaagsan u gudanno. ilahay baan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala. bishan shacbaanna dadka intooda badan ay khaflaad kaga jiraanna, annagana inuusan ilaahay naga dhigin kuwa ka faa'iidaysan waaya,
kuwa dayaca inuusan ilaahay naga dhigin baan ilaahay weydiisanaynaa. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu sidii nebigiisa uga faa'iidaystay salawaatullahi wasalaamu calayh inaan noqono annagana kuwa uga faa'iidaysta fursaddaas iyo jaaniskaa qiimaha badan. hada wabillahi towfiiq, wallahu subxaanahu watacaala aclam. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.